عصر كانوا صوبا من تهمتي فمن جاهدهم بقلبي درجتي وهسيسين واتكلميسا درجته ugu dambaysay uu nabigu tilmaamaya waxa weeyaan على الأقل haddaad intii kale awoodi kari weyday inaanay marnaba kaa suulin caqiidadaadii inaad haysataa kitaabka alle inuu xaq yahay ka uu sax aana inuu isagu yahay markaad adigu taba kala soo weyday nabigu wuxuu leeyahay walaysa waraa dhalika habatu khardal min al-iman حبت خردل إن لك خردل كوا مريا بحا أنت إن لقوا إيمان كم ضبيا بيقول هذا ده أنت أنا لقاويه قلبي جينا هدي لقاويه ده وحبك جماعة وحي عضينا يساتاسي إن أنت فرميسنين كتاب كريم عدالة صمينيه إن أنت فرميسنين لا الشرع يسوينا مدة كف ليه تصبح عضينا يسات والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون والروح دعي كتبوا النبي يقول الدوادي إلى إن من مدحي مادان oo wax wanaagsanaa ku arki doontaan wax xunna ku arki doontaan wax isku walaaqaya maxaa laga yeelaya faman kariha faqad buri bu nabigu ninka naca wuxuuda xun iyo mabdaa qaldan diida faqad buri kaasi waa nabad galay bu nabigu waman ankara faqad salim ninka isagu afkiisa ka hadlay inkiree waxa kan diidana kaasina waa nabad galay bu nabigu leeyahay walakin man radiya wa taaba bu nabigu laakiin ninka raali ka noqday daba gala لا برئ ولا سلم كاسوية كاسوية نبت قليل هنك هو الرعالي كان نغضى من نبت قليل وحن لأنا مكة مجفر إلهي كتاب كيسا وحلك للصعالة إلهي انت أنا إني عسري رسول بنتانا إن لقى طابي مضمتين تاسرين لقصهم إلهي كتاب كيسوا كتاب كيسوا دجي آيات كل سيدا وحب هرشون با كل دقالها غير سيدا وهجاج ورايات القرآن كوغو دير متقاني وحي كهضلس قضية الاقتصاد بك هذه آيات القرآن كوجتنا هذا بدل في سورة البقرة آيات وجودها القرآن وحي كور رمي الدين تيسير الله كلا قاطه إليه وحلي الدين تبك كلا قاطه إنسان قرآن السماية وإنت هو حسبتها كلا دقاقينه وحنا نكتب لنا قرآن السماية وحكى وقص عدم حي نظام يا مامور يعني وحلانا آيات دي قرآن كوجود والله نيدا وجودها ريب وحي كور رمي قضية الاقتصاد maxaa aayada talaaq iyo siwaajka ka soo horumariyay aayadadan maxaa keenay midna inay diinta lagu daro hadaad aragto maanta nin gabadha sharciga islaamiga ku mehersan weliga kaaga dhaadhicmaysa ninkaas gabadha uu qaba way waxa kugu qafilan qofka aan shariicada wax ku mehersan inaa wixiisu sax ahayn ilaahay kitaabkiisa ka aragto waad rumaysantay marka ku marimayso laakiin markaad aragto kan ribo ku dhaqmaya ama kacayka ku dhaqmaya ciidaba kuma tusin taasi iyo waxa iska moodaysa waa arrin yar iyadu iska fududo markii la doonana laga yara talaabsan karo markii la doonana la sameyn karo mushkiladda maxaa inagu abuuray waxa inagu abuuray reer galbeed maalintuu yimi caalamul islaami uu gumaystay shay quru ku dadaalay inuu sharciga dhaqanka ka saaro dabeetana indial binal code iyo qaanuunkiisa inuu keeno laakiin dadka weligii uma diidin in masaajida la galo waayo wuxuu xagga way kici doonaa haddaad gasho marka masaajida ay iska galaan dumarka say doonayaan ha u guursadaan ha dhaxladaan laakiin maamulka ayay soo hadal qaadeen maamulku in ilaahay loo hogaamiyo taasi meesha yuu imanay gaalku wuxuu burburiyey waxa ay dal khilaaf islaamiya taasi buu ku guulaystay ilaa haddana guushiisii wuu sitaa oo gaalkii hore markuu tagunba gaalka loo madoobi kuu fuura midabkuunbaa isbedelay maalin dhaweydba halka waxaan ka maqlayay gabay nin soomaaliyeed malaa uu lixdanadii tiriyey oo uu kaga hadlayey waxa isbedelay ingiriiskii iyo qoladii kale yani wuxuu tilmaamayay inaan waxa isbedelay aanu nidaamkii ahayne waxa isbedelay inuu raggii un ahaa ninkii caddaanayn daaqada laga saaray ninka loo madowna isma doorin gaalkaan diriyo daafta kii koraya dusha midabka Soomaaliba diirka mud yani eraya aad u tilmaamaya in waxa isbedelayeen ay yihiin nimankii meesha galay ee aanay ahayn waxa isbedelay maamulkii meesha yaalay waxaynu leenahay ma dhacday intaan isticmaalku inoo iman hortay taariikhda muslimiinta oo dhan isku soo dar ma dhacday waqti la yiri sharciga intaynu iska laabno aan sharci kale qaadano wuxuu doonaba ha noqdee hore ma u dhacday intaan isticmaalina gumaysan ee khilaafadii u dambeysay islaamka ee aanay burburin haayo mar bay dhacday fi taariikh العالم الإسلامي mar qura ayay dhacday markay dhacday waa goorma anu malaynaya salaadii maghrib baa joogta wala soo tukano kadib baynu qadaad dhacdada maanta ina haysta caalam الإسلامي ee ah inay jirto duwal muslimiin tilmaamaya oo aan sharciga islaamiga ana ku dhaqmin ama si sharciga la faydo taariikhdii muslimiinta hore ma uga dhacday baan waxa soo tilmaamay ahdi isticmaar markuu yimi ayaa koow ay bilaabatay sharciga dhamaantii la laabo
ma odhan karo amase ma odhanayno nin boqorradii islaamiga hore ka mid a ama caynkaasi wax ma dulminin taa ma odhanayno laakiin ma jirtaa mar la fayday maxaakimta iyo qaanuunka duwaliga ama muslimku uu ku dhaqmayay dhammaantii inta laga fayday mid kale la dhigay taariikhda muslimiinta oo dhan marka la baadho hal mara bay dhacday oo hore waa waktigii ay yimaadeen nimanka la odhan jiray tataarka nimanka la yidhaahdaa waxay soo weerareen dunida muslimiinta oo iyadu isgashay markaasi amase isqabatay niman boqortooyooyin doonayey ayaa isgalay oo iniba dhinac udooday dabeetana tataarku wuxuu ka soo bilaabay dagaal uu kaga soo qaaday dadka muslimiinta bariga mongolia meesha la yidhaahdo mongolia dagaalkii ay ka soo bilaabeen say u soo wadeen waxay soo gaadheen dhowr boqortooyo yaryar oo muslimiin ay kolba mid soo dumiyeen waxay soo gaadheen inay yimaadaan caasimadii markaa muslimiinta ee la odhan jiray baqdaad dhammaanteedna way ka takhalluseen markaa waata la yidhaahdo afartaneeye cashee webiyaga baqdaad maraa uu dhiig dareerayay intaa in leg waxay dhahay webiyada qaarkood khad bay dareerayeen baa la yidhi kitaabada iyo buxuudtii dadka muslimiinta ay lahaayeen oo dhan fanni kastaba ha noqdee webiyada bridge looga dhigoo lagaga tallaabi jiray waxay lahaayeen muslimiintu waaga taariikhdaasi dhacday ayaa ninkii jenkis khan la odhan jiray markuu meesha qabsaday wuxuu dejiyey sharci